يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ربحت ورب اللوح والقلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu sii wadanaynaa kitaabkeennii maatica ahaa alwajiiz fi الsunna الnabawiya. sheekha uu ku soo aruuriyey axaadiis kooxa oo axaadiistii nabiga salى اllahu alayh waali wasalam ka mid ah. waxaynu ka bilownay qeybtii ugu horeysay oo alcaqiida ah. alkitaabu alأwal alislaam wاliimaan. waxaynu soo sharaxnay aayaddii ugu horeysay fii suurati الnisa: yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاllahi warasuulihi wاlkitaabi aladii nazla calى rasuulih والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. كدبوا شاخة وحكو حجنا هيا أحاديث كصابسا إيمانك هي إسلامك. وحكو بالله بي حديثك عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. حديث كاس وحاوريي عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي كعب بن لؤي هل كاسو نسب كنبي كلا كل ما غير بني عديبها عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول كيسوي خليفه مسلمين عمر بن الخطاب والكيس عبد الله بن عمر مركا نسبك العدوي وحو كلا كل ما النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن لؤي الكاس أيو كغدع نسبك النبي صلى الله عليه وسلم قبيل قريش أيو مركا إيا بطنك وكسو جيدا أما لفتا يكسو جيدا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وحول الشيء غزودي وحول شيء النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعثديسي سنة كهر النبي نمديسي سنة كهر أيوة شيء. ولذلك عبد الله بن عمر دقالكي أحد أيو دمعي إنه كقيب قالوا ولو ديدي ولا علي دا يربى الله وريبي. غزوة الخندق أيو كقيب قالي ومركا وشان 8 سنة قاري مركا وشان 8 سنة سو قاري عبد الله بن عمر. wuxuu ka mid ahaa culimmada waaweyn ee saxaabada ayuu ka mid ahaa. aad buu wuxuu u raaci jiray sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam. kaana shadiida alitibaaci lisunnati nebiy sala allahu calayh wasalam. wakhtigii dambe ee fitnadii markay dhacday xilligii cuthmaan iyo wixii ka dambeeyey dagaaladii dhacay mucaawiya cali markay ismaan dhaafeen, cabdullahi bn cumar wuxuu ka mid ahaa dadkii waxaasoo dhan ka fogaaday ee gurigiisa fadhiistay ee ka baxay buu ka mid ahaa cabdullaahi ibni cumar radi allahu canhu. 73 hijriga ayuu maka ku dhintay isagoo dhowr iyo 80 sano jira ayuu dhintay radi allahu canhu waardaah. axaadiis aad u badan ayuu nebiga ka wariyey. walidaalika cabdullahi bni cumar wuxuu ka mid ahaa rag saxaabada ka mid oo la ohan jiray cabdullayaal cabaadala la ohan jiray. cabdullahi bni cumar cabdullahi bni camr bni caas cabdullahi bni cabaas iyo raggaasuu maaragtay buu ka mid ahaa cabdullahi bni cumar. axaadiis aad u badan buu nebiga ka wariyey 1630 xadiis ayuu nebiga sala allahu calayh waalihi wasalam ayuu ka wariyey. dadka uu axaadiista ka wariyey aabihii baa ka mid cumar bn khataab oo ka mid ahaa kibaaru saxaaba saynu tarjamadiisa ku sheegi doonno biidn illah. labadan xadiid ee ugu horeysa midna wuxuu ku saabsan yahay oo noo soo saaray cabdullahi bni cumar, midna cumar bn khataab ayaa markaa warinhaya. cabdullaahi ibni cumar maka ayuu ku dhintay, maka ayaa lagu aasay radia allahu canhu. cilmigii cabdullahi bni cumar waxaa ka qaaday dad aad u fara badan. waxaa ka mid ah awlaaddiisa oo culamo ahaa. cabdullahi bni cumar awlaaddiisa culumay ahaayeen. saalim baa ka mid ahaa, mowlihiisa naafic baa ka mid ahaa oo isagoo min kibaar culamaa ka mid ah. xadiis aad iyo aad badan kaga wariyey radia allahu canhu waardaa. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا وحاويري: بني الإسلام على 5. إسلامك وحال لغو دسي
aasiyaasiya 5 dushooda baa islaamka lagu dhisay aasiyaasiya 5 dushooda ayaa islaamka marka buniya al-islaamu calaa 5 ay usisa calaa 5 ama buniya al-islaamu calaa 5 ususin 5 tiir ayaa islaamka lagu dhisay 5 buu marka nabiga sallallahu alayhi wasallam sheegay shahaadati an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasuulullah qiritaan la qiro iyo markhaati kac laga markhaati kaco oo la rumeeyo alla xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allah alla mooyaane waa shayga ugu horeeya ee la rabo in la sugo wa anna muhammadan rasuulullah nabi muxamedna rasuulka ilaahay inuu yahay marka labadaas waa rukniga ugu horeeya islaamka qofka marka hadduu dhaho ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah islaamku soo galay marka hadduu ka noqdo wuxuu noqonayaa qof diintii ka ridoobay marka riddada waa wax sharciga jira oo a'imadeen iyo culimadeen ay sheegi jireen riddada waxa way qofka intuu islaamka soo galo inuu ka noqdo marka shahaadateyn qof hadduu ku dhawaaqo oo uu diintii ka noqdo qof ridoobay buu noqonayaa xugun buu leeyahay shareecadeena marka islaamka lagu soo galay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muhammadan rasuulullah nabigu wuxuu yidhi wa iqaami salaati wa iitaa'i zakaati walxaji wa sawmi ramadaan waxaa la soo hormariyey xajkii waxaa laga soo hormariyey soonka marka cabdullaahi bni cumar radia allahu canhu xadiiskan asxaabta ka warisay ee ugu mashhuursan ee xadiiska cabdullaahi ka warisay riwaayaadkooda markaan fiirino qaar waxay leeyihiin soonkiiba ay soo hormarinahayaan xajkiibay dibdhigahayaan oo xajkiibay 5 ka dhigahayaan qaarna asxaabta cabdullaahi bni cumar ee xadiiskan ka wariyey waxay soo hormarinahayaan xajka soonkay dibdhigahayaan riwaayaadka markaad aada u fiiriso kuwa ugu xooga badan waa kuwa soonka lasoo hormariyey waa kuwa xajka lasoo hormariyey ee soonka la dibdhigay sida aynu caadaysanay cagsigeeda yani waxaynu naqanaa ashhadu an laa ilaaha illa allah wa iqaami salaa wa iitaa'i zakaa wa sawmi ramadaan wa xaji lbayt soomayn riwaayaadka cabdullahi bni camar marka ugu xooga badan waxaa weeye wa xaji lbeyti wa sawmi ramadaan walidaalika imaam albukhaari raxmat ullahi caleyh kitaabkiisaba wuxuu ku bineeyey baabkan xajkii in lasoo hormariyo oo soonkii markaa iyadaa u dambeeyo marka asxaab cabdullahi bni cumarna saasay u badan yihiin riwaayada soonka soo hormarinaysa xajka dibdhigaysana riwaayo saxiix oo jirta weeye waa cabdullahi bni cumar markaa iyadaa laga wariyey laakiin markaad eegto waxaa xoog badan oo qawisan riwaayada soo hormarinaysa xajka ee dibdhigaysa soonka taasaa xoog badan fuqahada laakiin markaad eegto kutubta fiqhiga markay alifahayaan ama xadiiskan oo kale markay soo qaadanahayaan waxay soo hormariyaan soonka waxay ku xijiyaan xajka badanaa horumarintaasna waxay ku bineeyaan ijtihaadaad iyo baxthi nadari ah yacni baxthi nadari bay ku bineeyaane yacni kuma dhisaan riwaayada xooga badan iyo sida ay riwaayad kale ugu xoog badan ee xaggaa kama eegaan waxay ka eegaan dhinac kale waxay leeyihiin soonkan soo hormarinaynaayo laanna soonka qofka wuxuu waajib ku yahay sanad walba xajkana dee cumrigoo dhan hal mar unba qofka ku waajibaa marka dee jaanibka riwaayada shaqo kuma le soo ma arkaysa yani xadiiska riwaayadiisii cilaaqa lama leh marka tarjiix noocaas saasoo kale way u rajaxaan markay ka hadlahayaan masaladan oo kale wax dhibana male hadda khilaaf weyna kama taagna haddii xajka lasoo hormariyo iyo haddii soonkii la dibdhigo kulli waa 5 rukni waa un 5 oo soo arki maysa arkaanta islaamka ee 5 waa la sugay bal cabdullaahi bni cumar bacd riwaayaat oo ka sugan baa jira oo muslim iyo keyrkiisa warinahayaan wa sawmi ramadaan wa xaji lbeyt iyagana saa oranahayaan laakiin riwaayaadka xooga badan waxaa weeye sida kale aan sheegnay riwaayada maalan hadduu ilaahay ku cikrima ibn khaalid oo kale can ibni cumar uu ka warinahayo riwaayada saas oo kale moxamed ibnu zayd ibn cabdillaahi ibni cumar ibni khataab uu ka warinahayo kulli waxay soo hormarinahayaan xajka ay soo hormarin soonka ayaa markaa iyadaa dambeeya imaam muslim xadiiskan asaaniid badan uu ku wariyey asaaniidda waxaa ka mid ah sanad uu ku warinahayo raximah اllahu tacaala wuxuu ka warinahaya cubaydillahi ibni mucaad oo shuyuukhda imaam muslim ka mid ahaa markaas wuxuu ka warinahaya aabihii mucaad ibni mucaad alcambari
markaas aabihi wuxuu ka warinayaa caasim wuxuu ka warinayaa isaguna aabihina wuxuu ka warinayaa awowgii waa cabdullahi ibn cumar marka waa awlaad kala warinaysa xadiiska nebiga sal alla ly slam waxay taana ku tusaysaa saxaabada rasuulka sal alla ly slam iyo awlaadii iyo salafu hadi lumma say ugu dadaali jireen xadiiska nebiga sal alla ly slam ay markaa iyada usoo warin jireen caasim ibnu محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن خطاب باوحو كورنها أبي عاصم باوحو أبيه مركب محمد بن زيد باوحو كورنها أوغي وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر باوحو كورنها النبي صلى الله عليه وسلم يا كورية وحاكور عبيد الله بن معاذ وكورنها أبيه معاذ بن معاذ العنبري عبيد الله بن معاذ العنبري رحمهم الله جميعا marka cabdullahi ibn cumar waxa uu leeyahay buniya alislaamu calaa 5 islaamka waxaa lagu dhisay 5 tiir shahaadati an laa ilaaha ila allah qiritaan la qiro alla xaqa inuusan jirin ila allah alla mooyaane shahaadada waa mutlaqu likhbaar luqadda carabiga shahaada marka la dhaho waa ka waran waa waxaynu soomaalida dhahnaa marqaati marka xagga fi luga ashahaada waxaa weeye mutlaqu alikhbaar inaad wax ka waranto tira waxaasaa dhacay waxaasaa jiray baa shahaado la dhahaa amaa xagga sharciga marka laga eego shahaado waxaa la dhahaa in aad ka waranto qof kale xaq lagu leeyahay aad u sugto qofkii iska lahaa baa la dhahaa shahaado oo waxaad leedahay waxaan ka marqaati ka cahayaa hebel in xaqa ay xaqaa lagu leeyahay oo hebel uu ku leeyahay taasa xagga sharciga la dhahaa shahaado shuruud bayna leedahay oo kutubul furuuc iyo fiqiga ayaa lagu daraasiyaa shahaadadaasi halkan laga hadlayo hadda taas ma aha hadda waxa laga hadlayo waxa weeye at-tasdiiq wal iqraar waa qiritaan iyo rumayn weeye qofka inuu rumeeyo uu qiro isaa hadda isku qirahaya an laa ilaaha ila allah alla xaqa inuusan jirin ilaa alla subxaanahu wa tacaala mooyaane walidaalika waxaan dhahaynaa an laa ilaaha allah xaq ah ma uu jiro ila allah marka kelimadda asalkeeda wuxuu noqonayaa laa ilaaha xaqun ila allah mujada laa ilaaha xaqun marka khabarka waa usoo qadaraysaa xaq baadna ka dhigaysaa waxaad xaq ugu dhigaysana waa maxay adduunyada hadda way jiraan waxaan xaq ahayn oo la caabudo way jiraan buudhisimka waa ka sanamka ay caabudaan kuwa waxaa jira hawadooda caabuda waxyaabo ilaah badan baa la caabudaa asnaamtii baa la caabudaa qubuurtii bay dadku qaar caabudaan waxyaabo badan oo ilaahay ka soo hor oo la caabudo baa jira oo adduunyada ka buuxa ilaahayba qur-aanka inoogu sheegay laakiin ilaahnimada jinsiga la nafinayo waxaa weeye waa allihii xaqa lagu caabudahay marka alle xaq lagu caabudo oo mutaysta ma uu jiro ila allah alla subxaana wa tacaala mooyaane allah xaqa ah cibaada isaga unbaa marka iya iska leh waxa la sugahayana waxaa weeye towxiidu alcibaadati lilahi subxaana wa tacaala waxaana la sugahayaa saas oo kale ogaanshaha alle subxaana wa tacaala iyo rabbinimada alle subxaana wa tacaala waxaasoo dhan way soo hoosgalahayaan marka an laa ilaaha alla xaq lagu caabudaa ma uu jiro ila allah subxaana wa tacaala mooyaane wa ana muxameda nebi maxamedna rasuulullaahi rasuulka ilaahay inuu yahay nebi maxamed rasuulka ilaahay inuu yahay marka kelimadan laa ilaaha ila allah qofka inuu qiro haddaynu qur-aanka fiirinno allah subxaana wa tacaala waxa uu leeyahy fi suurati muxamed faclam annahu laa ilaaha ila allah baro inuusan jirin alla xaqa mooye ila allah mooyaane halkaa marka waa waajib qof walba oo muslim ah inuu barto kelimadaas towxiidka inuu macnaheeda barto waayo waxaan aad ku hadashay waa inaad garanayso macnaha ay leedahay waa inaad garanayso waxa marka iyada ka dhalanaya walidaalika culimmadeenna waxay u sameeyeen laa ilaaha ila allah shuruud bay u sameeyeen shuruuddaa shardiga ugu horreeya waa maxay alcilmu biha qofkii horta bal inuu garanahayo waxa uu qiray marka waxaad qirtay waxaa weeyaan alle la caabudaa inuusan jirin ilaa alle subxaanahu wa tacaala mooyaane laa yastaxiqu alcibaadata hayruhu ilaahay waxaan ahaynoo cibaado mutaystaa inuusan jirin ilaahay waxaan ahaynoo la caabudi kara inuusan jirin ilaahay inta la caabudo qof kale inaan lala caabudi karin walidaalika xadiidkan alfaadiisa waxyaabaha ku yimi fi saxiix muslim keyrkiisa waxaa ka mid ah an laa yucbada ila allah buniya alislaamu calaa 5 an laa yucbada ila allah mujada riwaayad qaar waxay ku imaanayaan
in lagu gaaloobo wixii ilaahay ka soo haray marka sugitaanka ilaahay tawxiidka in loo sugo xaggan kalena wax walba ilaahay ka soo haray lagu gaaloobo oo qofka uu aamino oo ictiqaado wixii ilaahay ka soo haray in marka iyada baatil uu yahay taana markaad eegto quraanka aad bay ugu cadahay oo hadda suuratu al-baqara oo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadii weyneyd ee aayatul kursiga la odhanayay markay dhammaatay ilaahay wuxuu yidhi laa ikraaha fi ddiini qad tabayana arushdu min alghayy faman yakfur bitaaguuti wayu'min billahi faqad istamsaka bilcurwati alwuthqa la infisaama laha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau yidhi faman yakfur bitaaguuti qofkii ku gaalooba wax walboo ilaahay ka soo haray cibaadadiisa wayu'min billaahi ilaahayna rumeeya faqad istamsaka bilcurwati alwuthqa xarigii adkaa buu qofkaa qabsaday soo ma arkaysa marka yacni si iimaankii marka uu noqdo iimaan adag oo sugan qofka waxaa la rabaa inuu xaqiina uu sugo baatilkiina uu anfiyo wixii baatilan ma jiraan xaqiina uu sugo baatilkiina markaa iyada uu anfiyo waana sida markaa iyada kelimada tawxiidka ay faa'iideynayso meelo badan ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka uu ku sheegay walidaalika culimada muslimiinta waxay dhihi jireen waxaa loo baahan yahay attakhallii qabla taxalli waxaa loo baahan yahay qalbiga in la maro oo wixii ku jira laga dhammeeyo oo wixii ku jira laga daadiyo markuu nadiif noqdo tawxiidka la geliyo baa loo baahan yahay marka waxaa weeye in lagu gaaloobo wax walbo ilaahay ka soo hara oo la rumeeyo allah waaxidun axadka keliya allah waaxidun axadka keliya in markaa iyadaa la rumeeyo qofkuna arrintaa uu min cilmi u yeesho uu garasho u yeesho allah xaqa in wey alla kale aan la caabudayn xaqa ay kelimadda leedahayna ay tahay ilaahay keliya in la baryo ilaahay keliya in loo hogaansamo ilaahay keliya in lagu xirmo ilaahay keliya loo sujuuda isagaa loo rukuuca isagaa cibaado iskale isagaa diin iskale sharci waa wuxuu ilaahay sharciyey waxaas oo maa soo galaya kelimadda laa ilaaha ila allah waana sida laga fahmayo min qowlihi tacaala faclam waayo ilaahay wuxuu sheegay laa ilaaha ila allah inay cilmi tahay marka qof walboo muslima fardu cayn waxaa ku ah inuu raadiyo cilmigaa ku jira laa ilaaha ila allah cilmiga ku jira qof walba waajib bay ku tahay la badbaadi maayo haddaan la raadin cilmigaas oo marka iyada aan la fahmin laakiin qofkii intuu rumeeyo wixii sharci ilaahay subxaanahu wa tacaala uu faray sida toosana istiqaamada ugula yimaado annagu dhihi mayna kala faahfaahin masaa'ilkaas shardina lagaga dhigi mahayo haddii iimaankii uu ka xasilo sharcigana qofka uu ku tooso walow uusan garanaynin ma aragtay laa ilaaha ila allah tafaasiisheeda waxa ka dhalanaya hadduu jaahil ka yahay laakiin diinta ilaahay uu qaato oo uu ku camal falo wixii xagga rabbi kaga yimaadana uu hogaansamo inta la doonayo intaasay ahayd inta la doonayo intaas bay ahayd walidaalika culimmada laa ilaaha ila allah waxay u sheegaan ilaa iyo 8 shardi bay ku xiraan shardiga koowaad waa kaa aan sheegnay ee markaa iyada ma aragtay ee cilmiga ah shardiga labaad waxaa weeye ikhlaas laa ilaaha ila allah inay daacad kaa tahay markaad ku dhawaaqayso ikhlaas ilaahay dartii in kelimadda tawxiidka aad u qaadatay oo aadan adduunna ku raadinaynin maslaxo kalena aadan ku raadinaynin wax maala iyo wax macno ah labadaba aadan ku raadinaynin ilaahay subxaanahu wa tacaala addoon aad ugu tahay oo ilaahay aad ugu hoggaansan tahay ikhlaas shardiga kale taana quraanka ilaahay wuxuu yidhi wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diin xunafaa waxa la amray waxay ahayd keliya inay ilaahay caabudaan iyagoo cibaadada u barax tirahaya allah subxaanahu wa tacala oo daacad ayay ka tahay markaa iyada marka ikhlaaskaana aad buu u qiimo badan yahay waana khayr badan yahay ikhlaaskuna wuxuu ka mid yahay acmaasha qalbigana meelaha ilaahay uu fiiriyo maxalu nadari illaahi subxaanahu wa tacaala licabdihi waa qalbuhu wa camaluhu qofka qalbigiisa camalkiisa baa ilaahay fiiriya marka ikhlaaska qalbiga waa ikhlaaskuna waa wax cajaa'ib leh oo sha'ni leh oo barako badan oo khayr badan ikhlaaska waxaan ku miithaalin karnaa waa wax aad u barakaysanoo waa sida dhibicda roobka ee cirka ka soo dhibcaysa ee dhulkay ku dhacdo uu cagaaranayo ee doogga u yeelanayo qalbiga ikhlaas uu galo qalbi wuxuu noqdaa aad u barakaysan khayr badan aad u barako badan buu markaa iyadaa noqdaa waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ikhlaasku markaa iyadaa waa jeceliye waxa yaree ilaahay dartii loo sameeyo waxay ka khayr badan yihiin oo ay ka fiican yihiin oo ka baaqisan yihiin wax fara badan oo ilaahay wejigiisa aan loo samayn qiimo ma leh laakiin wax yar oo ilaahay dartii loo sameeyo waxaasaa ilaahay barakaynaya subxaanahu wa tacaala marka kelimadu tawxiid shuruudeeda waxaa ka mid ah ilaahay dartii inaad kelimadda ugula timaado ilaahay dartii inaad diinta u soo gasho ilaahay dartii kelimadda inaad u iltizaamto ayaa la doonaya
shardiga kale ee saddexaad waxa weeye marka waa sidqi inaad rumayso kelimadaas oo sidqigu marka waa maxay carabkaaga iyo qalbigaaga inuu iswaafaqo oo markaad dhahaysa laa ilaaha ila allah hadalkaa inuu ka soo baxayo qalbigaaga iyo cindigaaga inuu ka soo baxayo uusan ahayn carabka keliya marka sidqigaas waa in la helaa mar qofka hadduu carabka ka dhaho qalbigana uu ka diido muslim ma ah munaafiq baa la dhahaa kaasoo waxaa la dhahaa munaafiq baa la dhahaa ayib qofkii carabku ka yidhi laakiin arrintii kama dhammaan qalbiga ma diidin laakiin kama dhammaan maxaa laga wadaa shaki baa ku jira kelmadda tawxiidka xaqnimadeedii baa shaki kaga jira qofkaasu muslim ah waa gaal muslim ah ilaa shakigaas la waayo oo dib dambe mar kale uu tawxiidkii ula yimaado ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna maxamedan rasuulullah markaasaa iimaankiisu sax noqonaya nacam annaga laakiin haddaan muslimiin nahay axkaamteenna xaggay ku xiran tahay daahirka qofkii annaga laa ilaaha ila allah noo dhaha muslim buu noo yahay waa u guurinaynaa waa soo dhowaynaynaa shakigiisa isagu u yaalla annagu maxaa naga gala ma naga garanayna qalbigiisa wax ku jira wax ka garan mayna yani soo arki maysa laakiin cinda allahi subxaanahu watacaala waxaan leenahay wax u yaalla male qofka hadduu waa shakiyaba kelimada tawxiidka shaki uu ka galo marka waxaa la doonayaa kelimada tawxiidka agtaada inay tahay wax maqtaca oo go-an laa ilaaha xaqun fi lwujuudi ila allah ilaahay mooye alla kale ma jiro ayib waxaan kale la caabudahaya kuwan dhahaya ciise waa inankii ilaahay iyo kuwan dhahaya subxaanahu maa yaquul culuwan kabiira ama ma aragtay asnaamta caabudahaya ama waxyaabahan kale diinta ka dhiganahaya waxaasoo dhan baadil bay ku sugan yihiin xaq ma aha marka haddaad qalbiga ka aaminto kelimadii tawxiidka laa ilaaha ila allah ilaahay unbaa xaq ah kuwa kalena malaha dee way saxan yihiin dadka way badan yihiine malaha qoladana way saxan yihiin annagana waa saxanahay gaal baa tahay muslimati cinda allah ilahay agtiisa laanna diinta islaamka waxay ku faraysaa laa ilaaha ila allah xaq mooyaane wax kaloo xaqa ma jira waana sida bata ilaahay subxaana wa tacala uu yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allah ogaaw ilaahay mooye alla kale inuusan jirin marka sidqiga waa isagana aad iyo aad buu muhiim u yahay arrinta kale qofka laga doonayo waxaa weeye ee shardiga u ah si loo aqbalo tawxiidkaagaas inaad jeceshahay ilaahay iyo kelimadaas inaad jeceshahay allah subxaana wa tacaala iyo kelimadda tawxiidka ah waxayna ka mid tahay miraha laga helo ashhadu an laa ilaaha ila allah qofkii inuu ilaahay subxaana wa tacaala jeclaado kelimadaana uu jeclaado oo jirkiisa ay tibaaxdo oo dhiiggiisa dhex marto maxabadaa marka waa shardi haddii marka qofkii uu yidhaahdo laa ilaaha ila allah ilaahayna uusan jeclayn kelimadana uusan jeclayn waa gaal muslim ah gaal weeye muslim ah marka maxabada waa daruuri ayib ilaahay wuxuu leeyahay fii suurati albaqara ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إلهي وحير ومن الناس دتك وحاكمذة من يتخذ من دون الله أندادا كويا لنا هي ألا سكريسة وح إله وكلام إله ولكما سمي سنة هي يحبونهم ويجعلهم كوا إلهي أي udhigma ay samaysteen bay jecel yihiin xubbi ah ka xubbi illaahi sidii ilaahay loo jeclaan jiray oo kale ah waaladiina aamanuu kuwa laa ilaaha ila allah la yimi ee iimaankii la yimina ashaddu iyagaa daran xubban jacaylka lilaahi ilaahay jecel yihiin marka ilaahay wuxuu u sugay ahlu laa ilaaha ila allah inay alla iyo laa ilaaha illa allah inay jecel yihiin baa ilaahay u sugay soo ma arkaysa marka maxabada iyadana waxay shardi u tahay كلمة توحيدك لا إله إلا الله نعم أرنت كلا وحوي كلمة داس وحي كذا شيء إن له جاسمه كلمة دا وحي كذا شيء إن مركا إذا له جاسمه وقفك مرهد بير لا إله إلا الله محمد رسول الله شرع ذي إلهي سبحانه وتعالى مركا إنه جاسمه إنه أقبله إنه ياله سماركيس وهو جاسمه وضبقله أي مركا إذا له باهيه وأيضا وحي كم يتهي شروط لا إله إلا الله وإلهي سبحانه وتعالى ما لبض أنه فرح القرآن
إن مركا إساق الله جاز ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن قفك مركا فأقم وجهك للدين حنيفا قفك إنه توصه ودينتي مركا إذا أوه جانسمه أي لا دونها يا مركا لمدة التوحيد كذا كل واقعي أرنتك لو حاول أقبل إنه أقبله وشرط مهمة كلمة توحيدك وآمني وجعل هذا وبهالكي أنا أكتي سيكتها هي كلمة مقبولة والله أقبلي أي سنكن نقولون وحو عربك كجهد لي وصن أقولين ها عربكم بكجهد لي ما بقولها يعني وبلدة يدتك أو جو رب لا إله إلا هي هذا أنه وإنسان اللي يصير إنك رمي الأشياء ورمحل الله صوت وما ضرب باصوم بمحاصم هنا دتك رب باصوم بي سو ماركيس مركا دتك باصوم هذا صون لقمة قتيه هذا قفك مسكين يصدق كصوما هذا عبادة ما قيام مرك ما حد أصومت إلهي بأي أمر الله جرّا إلى ترى إلهي بأي أمره أركان الإسلام كي كميته إلهي بأي أصومنا دت كان صوم الدين من نقول يعني سؤال كويس مركا وحلا دون هي أساسه كلا قبول كلمة دي قفك مركا إذا إنه أقبله وحي علماء إن كزيادين شرط سديد هذا وحي لهن إلا قالوا بوحي كسوهر لا إله إلا الله وحي كسوهر لا إله إلا الله إلهي دتك أي سميستين إن مركا إذا لو قالوا وتعنا واتينو شاقني أو آيات القرآن كوسو أروري واتينو تلمامني مركا شهادة أن لا إله إلا الله إلا قراءة لحق يسجر إلا الله ألمو يعني عبادة إسقى أيا إسكال الله سبحانه وتعالى إسقى ربي الله سبحانه وتعالى خلق يقول لي هي ملك يقول لي ما ملك يقول لي انت إلهي بأسكال إسقى وحنو لي إسقى وحد له أمرك إسقى إسكال الله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر هوي بإلهي ألا براروغا انتبهوا براروغا له الخلق والأمر أمور إي أمر بإلهي بإسكاله لها أنشاها ألا وحاوية لها أنشا خلق إي ملك إي تدبير إلهي إساقا إسكاله إساقا أبوري إساقا مامولا سأصلق وضع انت بإلهي سبحانه وتعالى بإسكاله ولذلك ملك جيسا ملك الله سبحانه وتعالى وحكى بحا مجران إلهي ملك جيسا وحكى بحا مجران وأن محمدا نبي محمد رسول الله رسولك إلهي إنو يهي نبي محمد رسولك إلهي أو صادري إن الراعي واجبك أي تهين ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم الله سبحانه وتعالى نبي محمد حكر لغاي كي لغو ختمي أنبياء دينتي سنة ديمه شرائع ذي هروران بالغو نسخي شرعي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحال لغو نسخي شرائع ذي هروران إلهي ملك النبي محمد صلى الله عليه وسلم دينتي يهودنا والا نسخي تي نصارى والا نسخي إلهي النبي محمد ملك صلى الله عليه وسلم وحان أهين إسلام وإلهي الدون وكأقبلها يا ما أجره ما بتشرب يعني ولذلك حديث صحيح واجه مسلم في صحيح يكور نهي والنبي صلى الله عليه وسلم وليه مجرى أحد أمتي إذا كمذا وأي مقلة هي ما من أحد من أمتي يهودي ولا نصراني ساس النبي ليه قف أمتان كمذا ما أجره أما يهودي أما كريستان ثم يسمع بي أنيق أي مقلة هي النبي نمذي ولا يؤمن بي أن الرومين إلا حرم الله عليه الجنة إلا إلهي نار بك حرمه إلا إلهي جنة يكحرمه جنة يكحرمه الله سبحانه وتعالى مركا أمة دوان نقانايا أمة النبي محمد بالله صلى الله عليه وسلم نبي محوير يهودي نصارى أمة إذا قف أمة إذا كم إذا مجرب النبي صلى الله عليه وسلم أو يهودي نصارى يغير كذا مركا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ذاتك الله صادري لبا يوقف سمين لبا أمة بين نقدين أمة وحين نقطة أمة النبي محمد يا شيء أمة الإجابة لها ومسلمين تيوي أمة الإجابة أمة أجيبتي إلهي نودر أمة النبي محمد أجيب صلوات ربي والسلام عليه أمة الإجابة أيها لها أمة كلنا وحال لها أمة الدعوة أمة الدعوة وحال لها ذاتك الله صادري النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوة إسلامك هي باقي إسلامك الله تلقى لي باقي إسلامك وحال الله تلقى لي أردن مركا إنسي جني نبي محمد دينتيس إنسي جني والله تلقى لي كل
كل ويعمم يعني انت أجيبتين وحالة أمة الإجابة انتان أجيبين وأمة الدعوة ويانو واللغو حسابي ديدد أي ديدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وينكو قالوا بهيان ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم دينتي سوى دين عامة وما أرسلناك إلا كافة للناس بإلهي أنبياء هوري قوم كودا إيو دد كودا إيو بلدد إيو جوغان إيو بالله سو دير جري النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن وحا الله سو ديري جن إيو إنسي بالله سو ديري صلوات ربي وسلام عليه مركا قف والبا إنو رميو أي واجب كون قنيسة النبي حديث كان وكو شاقي قرآن كان ويكو جرتا معناهاس هذا إنو شاقني قرآن كان وكو جرتا وفي سورة الهود إلهي سبحانه وتعالى وحوليه أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه من قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ومن أحد كي أما دول كي يكفر كقالوا به نبي محمد كقالوا به أما قرآن كقالوا ومن الأحزاب أحزاب تي أمضها كمذا أمضي دون تهنقط أمض عد يمد مذو كريستان يهود بوذيسم غير كيسا وحسن كنا يفلا وحي ما أركت هدو إلهي كورو يهي الأورنجر إنسي أوردن إيجني أوردن أمضها صوردن ومن يكفر به من الأحزاب إلهي وحي القفك النبي محمد ديدا فالنار موعده نار باسوغيسة بلنتيسو والنار بلنتيسو والنار وي ولذلك إلهي سبحانه وتعالى مركو ليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسولك مركو ليه وأن محمدا رسول الله شهادتين كاس وأصل وحيابها كرتب ما هي وحاكم إذا إن قفك واعتقاده كلمة التوحيدك وحي كسهرين وكو قالوا إلهي مركا كلمة التوحيد كان يبقى وحويري دينتان إسلامك وحانا هين وحقا ما يجرته ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه لقى أقبل ما هي مركا وحيابها خطرتها وحاكم إذا ودadku markay diintii ay jahal badan oo kaga dhaco oo ay aad uga go'aan waxyaabaha khatarta dhici kara waxa kamid ah qofkii isagoo islaamnimadiiba salaadii wixii iskaga jira in marka qaar kood qalbigiisa ay soo marto malaha qoliyaha kalena waa saxan yihiin qolo walba ee dariiqii ilaahay u marleed way taqaana waxyaabaha lagu gaaloobay kamid waa khatar waa khatar aad bay khatar u tahay waayo quraankii iyo xadiiska nabiga khilaafsan tahay arinta iimaankii bay khilaafsan tahayba iimaankii bay ka hor imaanaysaaba سؤالك ميس ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابتي إسلامكم مركي بري يا قلبي يميل بإيجيين هدي آمن سيهم قلاص صحن يجرتان إيجا أنا هين ما أنت سهل جنب يجيل الهاي أنت سود دقة أرضي أنت سود دقة مية سمين الهاي ما هي وحي أرد هاي وحويه ويوحن إسلام هين وأهل النار ضدك مركي النار تو إن لقبت بعدي وقفك أصعي وقفك درس كيسي جيران كيسي يا ما عرفتي وحكوها رأي سنبا إنه مروا بدينة إلهي سبحانه وتعالى وياه وحدعي كرتب إلهي إنه قفك وسوهنوني وإلهي سبحانه وتعالى النار كيقبض بعدي أيها دعي كرتب نبي محمد صلى الله عليه وسلم توحيدك يا رمينتا يا قيرتانك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحسوق لها النبي وحو شاقي إلى الرمي النبي وحو شاقي تصديقه فيما أخبر وحي النبي الشاقي إلى الرمي وحي النبي وهربي إن لجهره وحي النبي وأمري إن لسمايو سؤالك ميس وحان طريقي سأهين إن الإله لو عابدين أفرت شيء بسوس جريس وحي النبي الشاقي أخباره ونو شاقي إن الرمي وحو نجرب إن لجهره وحو أمري إن لن مانو إلهي إن لو عابدين إلا طريقي نبي محمد نجاتك مويان وحكلا إن لو عابد إلهي سبحانه وتعالى مركا كلمة علماء وحيديه جرين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحويان توحيد المرسل وتوحيد المرسل توحيد المرسل كي وحصو دري ولا وحده الله سبحانه وتعالى شرعي دينته إلهي بأسكله وتوحيد المرسل كي لا صادرين إلا وحده wadada kaliya inoo furana ilaahay nagu xiraysa waa dadii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam marka hogaamiyaha sare ee ummadda waxa weeyaan nabi maxamed sallallahu rabbi wa salaamuhu alayhi rukniga waa rukniga ugu horeeyay wa iqaami salaah salaadii marka iyada in la toosiyo iqaami salaah macnaheedu waxa weeye ad-dawaamu alayha
والإتيان بما يلزم لها صلاة دي إن لا إماده أو لدائمه لكان سدنا وحي صلاة مركا إيدا لازم سنيسي وحي سوق ليس إقام الصلاة مركا صلاة دي شروط دي أركان دي إن لا إماد صلاة وحي لا شروط بين لا شروط داس صلاة كهر واي أنت صلاة لا تكون واي أركان بين لا هو وقيبة صلاة دي مركا إيدا كمذا وي مركا أركانتي صلاة هي شروط صلاة هي هيئات صلاة هي سنن صلاة وحي أردن إلا لي مادو بوحي سوز جليسا وإقام الصلاة صلاة دي إلا توسيو وقت جيدي طهارة دي هدي نقطة جيركا هدي نقطة مريه هدي نقطة ماشي لقوتو كان هي وقت جي صلاة قبلة دي له بينها هي إنا دوسي جيدا مركا تكنيسو لا ميلان قبلة إهن لقا أقبل ما هيو سؤال كميس نيادي لا إيمان هي كدب أركانتي مركا إيادا ما أركتي صلاة وسدح يتمرق نئة أما أفر يتمرق نئة أما تضوي يتمرق نئة هذا بس علماء أوكلا قاد قاعدين مركا إن إيادين أركانتي لذي ماد ولا لما يستروا أركانتي صلاة إن مركا إيادا لما يستروا ولقود ذاله مركا وحي سوق ليس إقام الصلاة صلاة هل كان لغو شيئين وها صلاة دي فرضك واشنتي صلاة دوي واشنتي صلاة دوي صلاة دي السنن كهل كان لغو مدريني إسلام كتير كيس مركا اللي شيئها واسنت صلاة دي فرضك أول وظهر كي عصر كي مغرب عشي فجر كي صلاة شنتي فرائدك قفك يعني هدو إلهي يكون أجرنا وكيه لهيو دمدي سينا أي بريكو نقنيسو دمدي سينا أي بريكو نقنيسو سننكي وحي كلا لسعودينا إيمانك لغو زياد سدا ولغو قوية أجرك لغو بط سدا صلاة دي هداي بينها كان نقطة هدو سننك لغاقا كبي سؤالك ميسي فضائل فربضا أيام مركا إيضا كسو أروري صلاة سنن كولي كتاك مركا رسولك صلى الله عليه وسلم وحو كدغي صلاة دي ركن لباد صلاة وحاويان توحيد كمركا لغا سو تغو ووحا وين قرآن كان وحا لغا عبري كتاب سنة النبي كان كتاب باو بدن وحا لغا عبري قرآن صلاة وحا لغا عبري كتاب يعني فرض إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نبينا محيري 5 صلوات كتبهن الله إلهي سبحانه وتعالى وكو فرض يالي مركا كتاب كذا فرض بالغا وضع لكن ساسا وبدن كتاب مركا الزكاة لغا هذا هينا بدن وحا وبدن فرض باو بدن فرض كي كتاب كانوا اسكو معني وحاوي شيء واجبه وإلهي سبحانه وتعالى وفرض يالي لكن بدنا استعمالك القرآن كي حديث مركا يكتو الصلاة وحا الله استعمالي كتاب الزكاة وحا الله استعمالي فرض با الله استعمالي وحا الله استعمالي فرض نعم فرض نعم وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إن لأوغو ولا تام يالو وإيتاء الزكاة زكاة إن لبحيو زكاة إن لبحيو مركا صلاة أمور تيدي باب كذا نقول دورنا بإذن الله تعالى زكاة إن مركا إيضا لبحيو كلمة الزكاة لغة عربية معناها هذا وحاوي النماء والزيادة النماء والزيادة وحاكى له الزكاة لغو فسرة الطهارة لغو فسرة أصل كاللغة يعني مركا النماء ومحي لغة عربية معناها هذا وكبعد وحكبعة أي النماء لنا مركا الزكاة محا النماء لغو بحيي علماء وحي لهن زكاة وحا النماء لغو بحيي لأن مالك أي كواجبت هو مالك كبعة كلية مالا كبعين زكاكم واجبته وحي كلاو يدهن مايا وحا لغو بحيي زكاة وحا لغو بحيي مالك الزكاة لغا بحيي وكبعة وبركوبة سماركيس وبطا لبدا معنانا ولبدا ويلا ذا زكو وقفك ما عرفت هدو زكاة بحيي مالكيس وكبركوبة حقا كلنا هدو زكاة دي قفكي بحيو وحاوية مالك وحي كواجب يساق كبعة كلية وحيابا يكواجبته وحا كميدا زكاة ذهب كأيها كميدا ذهب كان هو مال كبعة وهذا ما ذهب إسكاه يسوته مدة كلا وكقيمة بدأ يسومه هو مصيبة هاي ذهب ولقى رخيص ما دركته ما ولقى كرب وصعدة لكن مشكلة كلو ليه هو ذهب قيمه سيئنا تكون تنادو تكون فائده قيمه سواء محي إنه كهات جهدي وإنه كهبح سادو فائده هذا هيسته معك فائدة برقم بعض هيسته
marka gurigi baad ku iibsan baawurki baad ku iibsan cuntaad ku iibsan walidaalika waxay dhaheen dahab waxa dahab lagu bixiyay laanahu yadhab u tagaa soo arki weyd haddaa tiraahdo dahabkii keeshada halkaas ku gaajaad u dhiman waa inaad bixisaa oo guri fiican iyo baawur fiican iyo uu kaa tegi marka laakiin wax fiican baad heli waad ku bedelan xaggan kalena wuu kobcaa waa maalkaa kobcee barare ee bate ee ma aragtay 100 garaam ee dahabka 10 sano ka hor aad haysatay qiimiga maanta uu joogay maanta ku qiimo badan yahay soo arki weyd marka waa maalkaa kobcaa kolay ku tahay xataa xoolaha nool ee zakadu ay ku waajibto geelay looday ariga inta un bay ku waajibtaa xoolaha kale kuma waajibta yani cayntooda kuma waajibto laakiin xoolaha nool laftooda zakada ay ku waajibayso waxay u zakada ku waajibtaa kuwada kobca bay ku waajibi haddaysan kobcaynin zako kuma waajibayso matalan waxaad haysataa oo kale 100 rati baad haysataa laakiin gaadiid bay yihiin oo dadkaad ka kiraysaa weligeed zako ku waajibi mayso inay si kale oo tijaaro ugu waajibtay business mooyaane iyaga laftoodii zako kuma waajibayso laana waad ku shaqayn waagii hore geela wuxuu ahaan jiray booska baawarta ku jiri jiray marka reeraha ku guuri jiray waa la kareyn jiray oo gaadiid ahaan baa loo isticmaali jiray marka haddaad iska soo xaraysato 20 rati haddaad soo xaraysato oo maalin walba lagaa qaato ama 100 aad soo xaraysato magaaladaas qofkii guurahayaba adiga rati uu ku soo dooranayo ratiyada meesha kugu xaraysan zako kuma waajibto iyaga cayntooda iyaga laftooda zako kuma waajibto tijaaradii aad samaysay lacagtii ka soo baxday taawil ku waajib waa hawl kale taagee isagii ma aha waa lacagtii way moogta xaggan kale markaad eegto haddaad geeli intaad soo xarayso sabadii aad soo geliso giddi aad ku soo xarayso oo adiga cawskii aad u dhigtay iyo biyihii wax zako ku waajibaysa male intay doonaan hala ekaaday 500 oo neef oo geel baa ku xaraysa oo saba kugu jirta laakiin waxay cunahayeen iyo waxay cabahayeen adaa u soo dhiga shariicadeenu kuma wax kugu waajibahay male allahumma inaad ka tijaaraysato mooyee waa baab kale taas shaka kale noqotay soo arkaysa bal sanadkii oo dhan haddii xoolahaas ay ku foofahayaan oo ay daaqsinihii ku duurka ay aadahayaan ay foofahayaan laakiin sanadkii waqti kamida intaad xeradii aad soo galaysay calaf aad u dhigtay hadda sanadkii un kamida oo iyaga aad markaa calfisay muddo iyadoo kale xoolaha haddaan calaf la siin ay dhimanahayaan zako kuma waajibayso macnaheedu waa maxay yani sanadka oo dhan hadday daaqahayaan laakiin 3 maalmood keliya intaad sabada soo gelisa cawska u soo dhigto sanadkaa zako ku waajibayso waa la fahmay soo marka zakada waxay ku waajibaysaa waa maxay wixii kobca wixii markaa iyada ma aragtay ee kobca marka zakadaana in la bixiyo iitaa'i zakati zakada ahkaamteeda aad bay u badan tahay waynu ugu tagi doonaa baabkeeda waynu ugu tagi doonaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waa maal khaasa oo dad khaasa ku waajiba oo si khaasa loo bixiyo waji khaasana lagu bixiyo baa zaka la dhaha waa maalun khaas yajibu calaa shaksin khaas liwajhin khaas ilaa naas oo khaas ah dad khaasana waa la siiyaa oo xoolo khaasa si khaasay u waajibaan maal khaasay ku waajibaan dad khaasay ku waajibaan dad khaasna waa la siiyaa zakada waa noocaas طيب وإيتاء الزكاة والحج حجكي والحج إي حجكي بيتك الله سبحانه وتعالى هو قصده كلمة حج معناها حق اللغة وحاوي وقصد حق اللغة وقصد حج وقصد مركا أذكر لكتو ومصدر ويحج بين قنيسة هذا توصل حج هذا ترى اسم بين قنيسة لبضنا ويكتم اللغة العربية القرآن كان ويكتم ولا على الناس حج البيت يحج البيت لبضنا ويكتم حجكم مركا وحاوي بمعنى القصد وإن لو قصده مركا إياها ما عرفت حق اللغة أما حق الشريعة إنه حاويان قصد بيت الله الحرام للعبادة بيتك إلهي سبحانه وتعالى لو قصده وعبادة مركا إياها لو قصده أي حج مركا إياها لدها شروط يحنو لي والحج يحجكي وصوم رمضان يبش رمضان ومركا للصوم أركانتها مركا وأركانتي شنطة أهيد إسلامكي مركا إياها لو لسي
abwaabtaas oo dhanna iyagoo isdaba jooga ayaan kitaabka ku gaari doonaa, waan ka bogan doonaa salaada iyo arkaanteeda iyo shuruudeeda iyo masaa'ilkeeda. aad iyo aad buu sheekha ugu shakayn doonaa axaadiista soo socota ee noo imaan doonta caqiida markaynu ka baxno, zakadii saasoo kale, xajkii iyo soonkii. xadiiska marka halkaa lagu sheegay wariyey imaam bukhaari iyo muslim wariyeen, xadiiska waxaa wariya saasoo kale tirmidi iyo nasaa'i iyo imaam axmed fi lmusnad ayuu isaguna ku wariyey. xadiiska kale waa xadiiskii cumar bn khaaab radia allahu canhu, can cumar bn khaaab radia allahu canhu qaala baynamaa naxnu cinda rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam data yowmi id طalaca calayna rajulu shadiidu bayaadi hiyaabi shadiidu sawaadi الshacr laa yuraa calayhi aharu الsafari walaa yacrifu mina axad xata jalasa ila الnabiyi salى اllahu alayh wasalam faasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wawadaca kafayhi cala fakhidayhi waqaala ya muxamed ahbirnii can اlislaam. xadiiska waa xadiiskii dheeraa cabdullaahi wariyey cumar ibnu khaaab radia allahu canhu. xadiiska cumar ibn khaaab waxaa ka warinaya cabdullahi bni cumar, wiilkiisa ka warinaya, wiilkiisa ayaa ka warinahaya oo cabdullaahi markaa iyadaa ibnu cumar ayaa ka warinahaya. xadiiskan saasoo kale waxaa wariyay abu hurayra, abu darna uu wariyey min ariiqi imaam nasaa'i ay markaa iyada ku warinaya, weliba faa'iida ziyaada ah ayaa ku jirtay asaaniiddaas axaadiisku timi. qaar waynu tilmaami doonaa biidni illaahi tabaaraka wa tacala. xadiiskan xadiis cadiima weeye, ilaa ay culammada qaar ay dhaheen xadiidka cumar bnu khaaab ee islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanka ka sheekaynahaya wuxuu kaga jiraa axaadiista nebiga sala allahu calayh wasalam sidii booskii faatixadu ay qur-aan kaga jirtay oo kale, sida booskii faatixada qur-aanka ay kaga jirto oo kale xadiiska cumar buu markaa iyada kaga jiraa. oo waxay ka wadaan axaadiista nebiga oo idil markaad fiiriso xadiiskan unbay sharxaysaa. lan xadiiskan waxaa lagu sheegay islaamkii oo dhan baa lagu sheegay, iimaankii oo dhan, wixii camal ahay wixii ictiqaad ah baa lagu sheegay xadiiskan. marka xadiis weyn oo cadiima oo shani leh weeye. xadiiska waxaa wariyay cumar bn khaaab oo ahaa amiir almu'miniin, khaliifadii labaad ee islaamkana ahaa radia allahu canhu. khilaafada wuxuu qabtay 13 taariikhda hijriga markay ahayd, 13 hijriga markay ahayd buu qabtay bil rajab waxaa dhintay abubakar radia allahu canhu, isagaa marka khilaafada qabtay, rajab bay ahayd. marka 10 sano iyo bar buu xukumahayay muslimiinta, 10 sano iyo bar. 23 dhexdeedii baa marka uu shahiiday cumar bn khaaab. cumar khaaab wuu shahiiday, wuxuuna shahiiday cumar bn khaaab 23 taariikhda hijriga bishii dilxija oo 4 bilood 4 maalmood ay ka dhiman tahay. dilxija oo 4 maalmood ay ka dhiman tahay ayuu shahiiday. weliba wuxuu shahiiday iyadoo markaa laga soo fulay xajkii laga soo fulahayo buu markaa iyadaa shahiiday radia allahu canhu wa ardaah. wuxuu ka mid ah cumar bn khaaab alcashara almubashiriin, wuxuu ka mid ahaa fuqahadii waaweyneydii saxaabadii rasuulka sala allahu calayh wasalam ayuu ka mid ahaa. axaadiis badan oo 500 kor u dhaaftay buu nebiga sala allahu calayh waalihi wasalam ayuu ka wariyey. madaxweynihii labaad ee muslimiintu ahaa abubakar kadib ee ku xigay. waa qofkii ugu horreeyey loo bixiyey amiir almu'miniin muslimiinta dhexdooda. amiir almu'miniin laqabkaas wuxuu ka bilowday cumar bn khaaab uu ka bilowday, lianna abubakar waxaa la ohan jiray khaliifatu rasuulillaah baa loogu dhawaaqi jiray. cumar bn khaaab waxay u bixiyeen amiir almu'miniin. abubakar radia allahu canhu xilligiisii oo waqti yar ahaa wuxuu aad ugu mashquulay abubakar inuu adkeeyo nidaamkii islaamka, dowladda islaamka idabada u dhiso, uu dhigo. dagaallo aad u adag oo faraha laga gubtay baa waxay dhaheen xilliga abubakar radia allahu canhu, oo carabtii in badan oo ka mid ah baa diinta ilaahay ka radowday. reermigii iyo wixii markii nebi maxamed u dhintay bay in ka mid ah way radoobeen. qaar baa zakadii diiday oo inkiray. musaliimatu lkadaab oo nin musiibo ahaa, beenaale ah, nebinimo sheegtayna dagaal aad u adag wuxuu ka bilaabay meel yamaamo la dhaho. dagaaladaas adag waxay ku soo beegmeen abubakar radia allahu canhu. abubakarna si aad u xoog badan oo geesinimo lahoo qiimo badan ayuu arrintaa ugu istaagay. marka cumar bn khaaab khilaafada islaamka wuxuu la wareegay iyadoo abubakar markaa uu salka u dhigay oo mushkilaadkii oo dhan ay xalismeen oo awooddii muslimiinta ay adkaatay. markaasuu cumar la dhaqaaqay marka dowladda islaamka ahayd. markaasaa dhul oo dhan la furay oo shaam la galay oo masar la furay oo afriqiya islaamka u gaaray
حقا كلنا إلا ما عرفتي دولك خراسان إسلام كوتلابي حلي عمر رضي الله عنه مركا فتوحات بدن بعد عي عمر بن الخطاب حلي جيسي صحابي جليل والنبي آدو جعلي هيبوها آدبو علم بدنا عمر بن الخطاب بل النبي صلى الله عليه وسلم بقى فسر الريو وحقوق فسر علم الراجح وآدو فربضن ملهم بوها حقا أيا لو وافجين جري قلبي كيسي عرب كيسبا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عادلنا وها دينت إلهينا آدي هذا وأدق أيو مركا إيادها إسلام كيسي خلافة ديسي انتبه إسلامك عزي يا شرف بوها قفل بو مسلم وأهل السنة عمر واجع عليها شيعة يا عدوغا ما عرفتي صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم با عمر وحكا شيغا عمر وحاد لينين أدون أها أو الأورنجري أبو لؤلؤ المجوسي لله بعد لي سوى دتك تجينها وإمام ويهي ومنبر كنبي وتاجيه عمر رضي الله عنه بو هالكاس كدلي ولو من ديال دحي علوش مال بكجدي ساسو عمر مركا كشهيدي مركا وحوها عمر شهيد المحراب محراب كشهيد رضي الله عنه حديث كان مركا عمر بأنه ورنهي رضي الله عنه شنبقل يصدن يا سجال حديث يكوري النبي صلى الله عليه وسلم عمر وحاوليه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت أين جوجني رسولك صلى الله عليه وسلم أكتيسا بينما وقت هذا كم ذا وقت أين جوجني عند رسول الله رسولك إلهي أكتيسا كلمة بينما وظرف منصوب وهي في مبني على الفتح في محل النصب ماذا نوى إسك زائدة ماذا كجرته وإسك زائدة بينما وقت نحن إنه مركا ظرف هداد مغشوا إنه مالكو تعلقا مركا حكو تعلق دونا جواب تصوصعته اطلع أي بينما كحرنته اطلع أي كحرنته بينما وقت نحن إنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر كسوقد نحن إنه مستقرون وكسغن أنه جوجا كسغن عند رسول الله رسول كلا أكتس أنفر إنه ذات يوم مال مالمها كم إذا النبي أكتس كسغن ذات يوم مستقرون تخبر كم بكو تعالوا قيسا ذات يوم مالمها كم إذا النبي أكتس أن كسغن إذ وقت جاس بينما إذ بالوحي سمعنا له إذ طلع وحصبح إذ وفجائية واي إذ وقت جب طلع وحصبح علينا دشنا رجل نين كاسو شديد بياض ثيابي أصل كذا شديد بياض ثيابه نعم شديد بياض ثيابي دركي سعدان تودا أي أدو درنتهاي نبى صباح يودر عاد وتا مركب بياض ثيابه حلقة وضع يعدر نظيفة رأد نظيفة وعد وتا شديد سواد الشعر تنتي سنة أي أدو مذودهاي لا يرى عليه أثر السفر سانسان سفر قف كان لقى ما أركين قف مسافرة وما أكين ولا يعرف منا أحد قف إنك نقمد وقرتين ما أسنجرين حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا النبي وحقي سأفريستي فأسند مركان سوتيري ركبتيه لبدي سلو أي وحكتيري إلى ركبتيه النبي لبدي سلو بصاو سوقبتين وهذا بصولو هذا ولو يدي النبي صلى الله عليه وسلم لو يديسي ومركع إذا كتيري ووضع مركع سوحوري كفيه لبدي سكف على فخذيه بوذوين كيس يساري مركع هل كان مركع إنه لنا وضع كفيه على فخذيه جملة وحي احتمالي كرتا أي نقون كرتا إن أصاري لبدي سقع عمود بوذوين كي النبي صلى الله عليه وسلم وحاكلو احتمالي كرتا ما يكويسو صاري لبضب عبارة ما ديديسو سؤالك ميسد لكن وحا أرنتاس احتمال كازوليي رواية النسائي يا أبي هريرة يا أبي ذر رواية معانا قصة إلى هذا وحي رواية داس حديث كان لفتي سكولي كوتاي قصة لها وهذا الشيء دوناي لكن رواية قصة هذا وحي أهيد الصحابة أبو هريرة يا وحي ليهين النبي صلى الله عليه وسلم مركو نلجو وقف مركو يماد النبي دونه هي النبي ضدك لا ما قرن شرين ضدك دحفدين شرين مركا سال صلى الله عليه وسلم مركا سال ويدين شرو نينكو حوله هاوي النبي محمد مركا سان قتل مامينا أرنتي بان مركا دمعني بي إن حلنو مركا سال النبي وحان كدل بني
inaan u samayno jaldiino dhoob ka samaysan dhoobo sida jaldiino oo kale ah oo yara sarraysa uu ku fariisto oo annagana markuu wax noo sheegahay aynu si qumaati u aragno xaggan kalena hadda nebi maxamed dadkii uu ka yara socmoo la garto arrintii baa nebigu sala allahu calayh wasalam naga yeelay meeshii baan dhisnay buu yidhi meeshii buu nebigu fariistay maalin marka maalmaha ka mid a inagu sida u fadhina oo nebigana uu sida u fadhiyo baa nin baa soo galay nin aada u qurux badan oo dhar aada u qurux badanna wata dhar aada weliba u cadcad xagganna caraf iyo cadar aada u wanaagsanna uu ka soo carfayo riwaayo saasay leedahay baa soo galay markaasuu wuxuu yidhi dadkii assalaamu calaykum waraxmatullah markaasuu salaan kalena wuxuu ku khaas yeelay nebi maxamed sal alla alay wasalam markaasuu assalaamu calayka yaa muxamed uguma yeerin nebinimo iyo risaale magaciisa caadiga oo mutaxan buu nebiga sal lla alay slam ugu yeeray macnaha ku jirana waxaa weeye ninka waa jibriil gadaal baa laga sheegi doonaa xadiiske macnaha ku jira waxaa weeyaan nooc yaroo tacmiye ah tacmiya waxaa la dhahaa yacni waa la qarinahaya jibriil xikmad ilaahay baa waxay ahayd in jibriil inuu isku soo ekaysiiyo bini aadan si dadkan diinta uu baro iyo aadaabta la doonahay marka haddii marka risaaladii nubuwadii waxaa laga yaabaa in la fahmo arrinkii marka saas ugu leexday wajiyada lagu fasira ayay ka mid tahay sababta jibriil uu yidhi yaa maxamed uu yidhi culimmada qaar waxay dhaheen maya waxaa dhici karta intii aan la reebin inay ahayday markii hore la dhihi jiray yaa maxamed ilaa dib baa laga yidhi laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacda ha ka yeelina yeeritaanka nebi maxamed sal allahu alay wasalam sida idinkaa iskugu yeeraysaan oo kale ee nebiga markaa u yeeraysa yaa nebiy allah yaa rasuul allah dhaha magaciisa ugu yeerina dib bay ka timi marka markuu nebiga salaamay buu markaa wuxuu ku yidhi ninkii ma soo dhowaadaa markaasuu nebiga yidhi soo dhowow markaasuu soo dhowaaday markaasuu haddana yidhi ma soo dhowaadaa markaasuu soo dhowow ma soo dhowaadaa soo dhowow ilaa nebiga marka jilbihiisii uu soo gaaray intaa wuu idan qaadanhayaa marka ilaa jilbihii nebiga uu soo gaaray fawadaca kafayhi calaa rukbatay annabiyi sala allahu alay wasalam gacmihiisii marka wuxuu saaray labadii low ee nebiga ama boodooyinkii nebiga sala allahu alay wasalam calaa fakhiday annabiyi sala allah alay wasalam buu saaray buu saa u saaray marka xadiis qiso laakiin xadiiskan laftiisa qiso laho horta xadiiskan waatan sheegno cabdullaahi ibni cumar ayaa wariyey qisaa jirta marka nin waxaa jiray la oran jiray yaxya ibnu yacmur nin la dhaho ayaa jiri jiray albasri ama almarwasi iyo nin la oran jiray xumayd ibnu cabdiraxmaan alximyari laba nin bay ahaayeen waxay dhaheen basraan iska raacnay annagoo ama xaj ama cumro u socno baan basra iska raacnay magaalada basra ee ciraaq ku taalla waxaa dhisay cuqba ibnu ghaswaan baa dhisay cuqba ibnu ghaswaan baa magaalada dhisay amarka cumar baana lagu dhisay ka hor ma jirin walidaalika waxaa la dhahaa waa magaalada keliya ilaahay waxaan ahayn lagu caabudin la-an muslimiinta dhisoo degay deegaanka ugu horreeyay muslimiin baa sameeyey basraynu iska raacnay oo waxaynu aadnay saacadda i fiiri ya ayib baynu iska raacnay waxaan aadnay xagga iyo maka annagoo xaj ama cumro u soconna maka markaan tagnay baa waxaan nidhi haddaan heli lahayn yaxyaa odhanahaya waxaan isnidhi aniga iyo xumayd ibn cabdiraxmaan alximyari waxaan nidhi haddaan heli lahayn qof ka mida saxaabadii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo aan weydiinno dhibaatadan ka soo baxday basra ee macbad aljuhani uu la yimi ee qadarka uu inkirahayo haddaan heli lahayn qof saxaabada rasuulka ka midoo arrintaa aynu weydiinno annagoo sida isdhahayna unbaa waxaa nugu soo baxay cabdullaahi ibni cumar oo masaajid ka soo baxahaya markaasaan dabagallay bay dheheen markaasaan garbinay anna dhinac baan ka galay buu yidhi saaxiibkeena dhinac kale buu ka istaagay cabdullahi ibni cumar wuu socdaa dhinacyadaan ka soconnaa buu yidhi markaasaan waxaan nidhi yaa abaa cabdiraxmaanow qolyo waxaa ka soo baxay xaggeenna basra qur-aanka aad u akhriya aadna ugu xeel dheeraada qur-aanka toosintiisa iyo xifdigiisa aad ugu xeel dheeraada baa inaga soo baxay xaggan kalena yataqafaruuna alcilma cilmiga aad u dabagala niman cilmiga aad u dabagala oo raadiya oo aad u raadiyana way naga soo baxeen oo cilmiga aad u raadiya ku xeel dheeraada cilmiga
وحين الليهين أرنكودي مركا وذكر من شأنهم مركا شأنه وذو حكشة ونمان آذو فافي أو ضدك سامي أو كذا ويسيد ده شأنه وحكشة يعني مركا سوحي وحين الليهين قدر كي كهل لهيانو قدر كي إلهي بيسين كرسيهن من كاس قراك وبرتي علم قصا ودبقنا هي قدر كي إلهي بين كرسيهن أو وحي ليهن إن الأمر أنوف أرنتو وعصيب إلهينا بن آدم كو مرك وحي سمينا هيان مرك وي سميان كدب أنبو أقادام موياني كهر مأوغين ساسي لي نمان كاسان ربنا إنان كاوريسانو مركاسو عمر وحوي نمان كهدا أوتكتان وحاد أوشاكتان كو إنان بري كأهي إيونا أي بري إيجيهين إلهي بانسكو دارنا هياي بورت أحود والذهب هدي بحيان إلهي كأقبال مهيو إلا أي قدر كالرمية مركا قال نمو كحكم يسمى أركيس وقاليسي كدب مركا وحويري آبهي بقى والرمي شاكذا حديث كان الكاسي كبر الله بنيس الكاسي كجوجنينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.